وبه نستعين على أمور الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. رمضان wanaagsan. runtii waxaan halka salaamayaa wasiirka cusub cabdirasaaq ibraahim maxamed faarax iyo wasiirkii hore cabdirasaaq ibraahim maxamed ataash oo iminkana ah asaasaha iyo guddoomiyaha urur siyaasadeedka waa beri. dhammaan wasiirada kale ee halka fadhiya, xildhibaanada, madsharafka, agaasimayaasha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. runtii farxad bay ii tahay inaan dowladjintan ka soo qayb galo oo maanta aan goobjoog ahaado ay xilka iskula kala wareegayaan wasiir cabdirasaaqna ku wareejinayo wasiir cabdirasaaqna la wareegayo. wasaaraddan dee waa laga soo sheekeeyey muhiimadeedii iyo waxay qaranka halkay kaga jirto iyo halgowlaha ay tahay inay runtii kaabayaasha dhaqaalaha jidadka iyo gaadiidka oo runtii waxa ugu badan in ku safarna ah iyo muhiimadda ay leedahay. cabdirasaaq runtii uma cusba shaqada dowladdu, institution dowladdu kasoo shaqeeyey, golaha shaqeeyey kasoo shaqeeyey. waxaan rajeynayaa aqoontiisa, falsafadiisa iyo cilmiga iyo aqoonta runtii lagu doortay madaxweynuhu ku qaatay in wasaaradda kusoo horumarin doona. waxaan umaleynaya wasiirka saddexaad ee wasaaraddan markii la yagleelay wasiir ka noqday inuu yahay markii loo arkay muhiimadda ay leedahay wasaaraddan oo ka sidkanayd wasaaradda hore oo madaxweynuhu gartay inay gaar noqoto muhiimadda gaarka ay qaranka ugu fadhido. marka waan ku qanacsanahay, runtii waan ku kalsoonahay inuu cabdirasaaq halkasoo horumarinayo. wasiirka hore ee runtii wasaaradda cabdirasaaq ibraahim ataash oo isaguna runtii falsafad cusub la yimid oo deegaanada aan kasoo jeedno. haddii uu siyaasadeedka waa beri dadweynaha Somaliland ay taageeraan attitude-ka dadkaas oo dhan bedelay. marka uu ka duwan yahay ururada oo dhan iyo siyaasiyiinta oo dhan. ummaddan buu xoreynaya, xoreynta uu lagu kala horreeyey isagu laakiin si dhab tahay ee Somaliland dhammaystiraysay uu xoreynaya. marka dadweynaha Somaliland horena u codsana inay ururka soo saaraan si Somaliland dhammaystiran oo qurux badan loo helo. dhammaantood salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.